بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. ما أنت رنتي فرحة قاربة ينتهي أنيقا إيو مدنياشا قلاء وكيلدا إيو قلاء فلينتا إنتا كجوكتا إيو أمباستور كبا إنان هلقا كستور دوينو قرونكا دياردا مقالة قروة مدحويني هوراء دولة بودلان مدحويني عبدولي محمد عالقاس مدحويني سودو صدحي طبانكي بلاد aad ka maqnayd waa nabad haday tahay dhinaca amniga dhaqaalaha iyo siyaasadaba oo xasiloon yahay alxamdulillaah rabbil caalamiin sanadkii la soo dhaafay dayrtii iyo gugaba roob fiican baa daay ilaahaydnkii xilli roobaadkii gugana hadda bil baa muddo ku abaarnay marka sanadka wax abaariin ma jirin dalku waa barwaaqo aadna waa loo wanaagsan madaxweyne hadda waa dalkii aad xukumaysay 5 sano wax waliba madaxweyne halkaad kaga tagtay oo hore aan uga sii dhaqaajinay joogan waa fiican yahay dalku wixii iswaraysiya iyo kalena marka aad dhigtay baan wada qaadan doonaa aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa madaxweynaha ku hadlay afkii dawladda Puntland oo dhan inaan nagala soo qayb gasho shirkii wada tashiga madaxweynuhu ku baaqay oo adigana aan ugu cazumay aad baan idin salaamayaa dhammaantiin aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa saaxiibkay walaalkay gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid odayaasha xildhibaanada saaxiibada ah golaha wasiirada iyo shacabweynaha kale ee Puntland ee maanta igu soo dhaweeyay caasimadda dalka sida walaalkay sheegay muddo 13 bilood ayaan ka maqnaa dalka dabcan si dhow baan ula socday horumarka iyo isbedelada iyo wanaaga badan ee dalka ka jira dabcan ducadana waa idinku soo kabayay runtii intaas baan hadda awoodaa sida uu sheegay Cabdirashiidna dalka waan imid waana joogayaa shirka muhiimka oo madaxweynuhu ku baaqayna laguna cazumayna waan ka qayb galayaa insha Allah
shirkana waxaan u rajeynayaa in wax wanaagsan oo masiirka Puntland oo marka Puntland baritaro in ay ka soo baxaan insha Allah wixii talaa hade odaynimana oo kala baxaydimaya waa aan ka geysanaya insha Allah dina yiraahdo marka yani waa joogaya dalka si mugle baan isku wareysan doonaa saaxiibaday soo dhaweynta qaaliga ah rag iyo dumar bale ay soo dhaweeyeen oo gudoomiye ugu horeeyana aad iyo aad badan ma santeen